muuqaalku waxa uu ku bilaamayaa tuulo yar oo dhacda deegaanada Andhra Pradesh sanadkuna waa 1980 deegaankaasi waxa ka soo baxay xisbi yar kaasoo doonaya in jagada wasiirnimo uu helo baabuurka uu ninka wasiirka raba inuu noqdo waxa lagu dhalay cunug yar shakada ayaa markaas ka soo wareegatay 15 sano kadib khaasatan 1995 wiilkii yara ee maalinkaasi lagu dhalay baabuurka wasiirka ayaa waxa uu u yimaaday isla wasiirka waqtigani laakiin wasiirka waa uu ku guuleystay heerka jaganimo isla mar ahaanta mid ka mid ah dadka maalgeeyaasha ayaa ka dalbanaya inuu xubin uga raadiyo dawladda labadoodii ismaandhaaf ayaa ka dhacay wasiirka ayaa bilaabay inuu u gacan qaado xubintaasi aad ayuu uga naxay markuu arkay ninkaasoo dhimanaya sidoo kale xubnaha wasiirada ee kale ayaa dibadda ku sugaya isla mar ahaanta waxa uu ka dalbaday ninkani odayga ah iyo wiilkiisa in garab la siiyo si sharaftiisii aan looga ciyaareen odaygaasi waa uu tuugtamayay balse cunuga yar ayaa hadal ka qabsaday waxa uuna sheegay inuu isaga kiiska dilka dusha saaranayo laakiinse waa inuu hal mid oo ka ballan qaada waa in marka hore aabihiisi uu wasiir ka dhiga aabihiisi ayaana marka u ogolaanaya inuu soo daayo dhacdada hadda 20 san ayaa ka soo wareegatay khaasatan waxaan aragnaa magaalada Hyderabad waxaa ku soo batay dilalka iyo sidoo kale afduubka caruuraha iyo sidoo kale dumarka isla mar ahaanta arrinkaasi waxaa isku xil saaray ciidan bileys khaas ah ciidamadani bileyska khaaska waxaa hogaaminaya askari lagu magacaabo Dhruva sida ay burcadu sameynayeen si la mid ah ayuuna isna sameeyay waxa uu bilaabay inuu soo afduubto xaasaska burcadaasi si iyaguna markaas ay dib u soo wareejiyaan caruurta ay afduubteen meel ayaana lagu ballamay mission qarsoodi ayaana lagu qabtay kooxdani waxay ka tirsan yihiin ciidamada IBS waxaana hogaaminaya isla sarkaalka Dhruva kooxdani 5 qof ka kooban si khaas ah ayay u wada shaqeeyaan Dhruva isagu wax reer ah ma laha waxa uu naftiisa u horay inuu dalkiisa uu ka dhigo mid xasiloon mararka qaybtood xitaa asxaabtiisa ma dhibo isaga ayaana baxa si uu markaas arin kale oo qarsoodiya u soo ogaado habeenkaasi uu baxay waxa uu soo ogaaday in hadda qolyo burcada ay diyaarinayaan in dalka la soo geliyo dawa dhacday waqtigii ay dawladdu ay kala fadhi ay yeelanaysay Dhruva ayaa hadal ka qabsaday waxa uu sheegay xaaladaha dalka ku soo wajahan laakiin isla mar ahaanta dawladda arrinkaasi si culus uma qaadeen Dhruva fariin ayaa u soo dhacday meel khaas ah ayayna isaga asxaabtiisa tageen waxaana halkan u timaaday gabar ay saaxiibayeen oo lagu magacaabo Ashika asxaabtiisa ayaa wax ka weydiiyay isna waxa uu sheegay sida bilowga ay isku barteen maalintaasi koox dumar ayaa waxay ahaayeen kuwa safar ku jira wiilkan oo ka dambeeyay ayay bilaabeen inay caayaan Dhruva ayaa baabuurkii joojiyay waxa uu bilaabay inuu baska soo galo khaasatan gabadhi caynaysa inuu u yimaado markii weydiiyeen adiga kuma tahayna waxa uu u sheegay inuu isagu ciidan yahay maalintaasi ayay sidoo kale wiilkani ka heshay isla maalintii xigtay waxay aragtay isagoo ku tartamaya tartanka bushkuleetiga waxayna ka dalbatay in la sii dhaweeyo gabadhina sida ay jecel u qabto waxay ugu soo biirtay isla sidoo kale ciidanka laakiinse Dhruva gabadhani isagu wax dareen ah uma hayo halka iyaduna ay jecleed maalintii xigtay ayayna go'aansatay inay jecelkeedii u bandhigato laakiinse sidii ay filaysay si ka duwan ayay markaas la kulantay isaga waxa uu u sheegay inuusan waqtigaani diyaar u ahayn inuu qof jecel ka qaabilo arrinkaas oo iyadii niyad-jab ku noqotay taasi waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee ay kala tegayeen hadda labadoodii dib ayay u kulmeen asxaabtiisa ayaana ka caawisay inta halkaasi joogeen qoliyo burcada ayaa arkay maamaya ninkeeda oo duqooshina kuwaas oo dahab wata waxayna u ordaysay ay dahabka uga baadaan inta Dhruva iyo kooxdiisa ay soo ordayeen hogaamiyaha burcada ayaa bilaabay in odayga meesha uu ku dilo si uu dahabka si khasab ah uga qaado sidaas ayay meesha uga carreen Dhruva ayaana mobilkiisii ka daba tuuray mid ka mid ah ayuuna u galay waxayna go'aansadeen inay ka raacaan locationka laakiinse markii dambe Ashika ayaa soo wacday waxayna bilaabeen inay telefoonka iska tuuraan dhammaantoodii waxay bilaabeen meesha ugu dambeysay uu wicitaan ku go'o inay yimaadaan dhammaanna waa ay isqaybiyeen ilaa markii dambe uu meesha ka helay mootadii ugu dambeysay waxayna bilaabeen inay si qarsoodiya dhismaha u soo galaan halkaasi burcadii
meesha joogay oo dhami ayay kula kulmeen oo ay bilaabeen in dhammaantoodii ay garaacaan dhammaan markii ay soo qabteen hogaamiyey burcadda ayay sidoo kale muuqaal ka duubeen waxaana loogu yeeray ciidamada bilayska maalintii xigtay dhammaan askartoo dhami heegan ayaa la geliyey si markaasi wasiirka loo soo dhoweeyo arrinka fajaca ku noqotay ninkii ay maalin dhowota xirayeen ayaa sidoo kale ah waardiyaha khaaska ee wasiirka marka ciidamadu waxay ka shallaayeen in ninkaasi maalinkii hore ay geeyaan xabsiga sidoo kale waxay la kulmeen hooyadii ninkeedii la dilay iyana waxay sheegtay in ninkeedii si xaqdaraa lagu dilay ninkii dilayna uu magaalada mushxaraadayo duruufa waxa uu sheegay idinka waxaanoo dhan hala yaabina kiisas kuwaanoo dhammi ee ka waaweyn ayaa jira waxa uu keenay gurigii uu yaraantiisa degana oo hadda u ah maqsinka meesha oraho cajiib oo dhiirigelin ah ayaa ku qornaa sida marka hore ogow cadowgaaga waxaa ogaanaysaa qofkaad adiga tahay sidoo kale waxa uu u sheegay burcadda magaaladani ugu weyn waa 3 nin oo qura maalmihii ugu dambeysay caruuraha dalkoo dhammi waxaa lagu soo sheegaya xanuuno aan horey loo arkeen arrinkaasi waxaa ka dambeeyey in dowladdu aysan waxba ka ogeyn daawooyinka dhaca ee lasoo geliyo dalka daawooyinka dhaca ee dalka lasoo geliyo 15 nin oo qura ayaa qeybiya 3dan ayaana hogaamiya laakiinse 3daani waa magacuyaallo hal qof oo qura ayaa ka sareeya waana inaan soo helnaa hogaamiyahaasi habeennimadii xigtay ayuu keligii soo dabaraacay waxa uuna soo galay goob shirkad halkaas sidoo kale wasiirkii ayuu kula kulmay arrinka mucjisada ayaa ahayd dhammaantoodii waxay sugayeen in ninkaasi uu soo baxo arrinka mucjisada noqotay ayaa ninka halkaasi lagu sugayo waa nin saynisyahan ah waana dhiktoor lagu magacaabo Sarander sidoo kale isaga dhakhaatiirta meesha ayuu isku daray Sarander waxa uu rabaa inuu tijaabiyo daawooyin cusub oo uu rabaa inuu caruur yar oo agooma ah uu ku tijaabiyo sirtaasoo dhan markuu soo ogaaday oo uu dib ugu soo laabtay gurigiisa waxa uu ogaaday in dhibka oo dhammi aysan kuwaani ahayn balse qofka dalka cadowga ku cid kale maaha waa dhiktoorkani maalintii xigtay ciidamada ayaa jagooyin la guddoonsiinayay waxaa la gaaray wakhtigii jagada la guddoonsiin lahaa duruufa oo hadda noqday hogaamiyaha ugu sareeya ee ciidamada IBS dhiktoorka ayaa markaas u sheegay in sidoo kale uu hadiyad khaas ah u hayo waxa uu siiyey biskoolad iyadoon aragno in duruufa uu qabo gloves duruufa markuu hadda sarkaal noqday waxa uu ciidamadoo dhammi u sheegay hadda marka amar qaadanaysaan dowladda waa inaad ku shaqaysaan amarkayga hawsha ugu horey ee loo howlgelaya waa in marka hore 3 nin gacanta lagu soo dhigaa maalmihii xigay 3 nin ayaa dabagal lagu sameeyey khaasatan waxaa dabagal lagu sameeyey dawooyinka dhaca waxaa jirta maalin khaasa waana 10 December waa in maalinkaasi horta laga hortagaa waxayna markaasi ogaadeen inay jirto gabadh dhakhaatiirad ah oo ka timaanaysa Switzerland kaatoo ku takhasustay dawooyinka gabadhaas ayaa mar waxay ka hor istaagtay in dawooyinka dhaca dalkani la keeno marka duruufa iyo ciidamadiisa amniga ayay sugeen si gabadha dhakhtarad ah loo badbaadiyo kadib kulan ayuu la yeeshay waxauna wax ka wareystay arrinka dawooyinka dhacay qorshihiisii ugu weynna waa in ninkan in sadaad gacanta lagu dhigo markaasi qorshe kale ayuu diyaariyey waxa uu go'aansaday inuu kala bedelo gaarigii ay saarnay dhiktooraysatada maanta waa 10 December waana sidoo kale maalinka uu dhici lahaa heshiiska ganacsi ee ugu weyn ee qaybta dawooyinka ee India isla mar ahaanta intay wadada mariyeen qolyo burcad oo bannaan baxaya ayuu meesha duruufa ku arkay waa uuna go'aansaday inay qorshe damacsan yihiin qayb ka mid ah ayuuna meesha ku qanqabtay asheeka oo ku dhow xitaa in la dilo ayuu meesha ku badbaadiyey iyadoo arrinkani caddaynaysa inuu ahaa qorshaha in la dilo dhakhtarada 3 nin ayaa sidoo kale lasoo qabtay dhakhtaradii ayaana ogaatay in qorshe dil ah loo diyaariyey dadka caddaanka iyo yurubiyaanka ee qorshaha la geliyay dhiktoor Sadaad waa ay kasoo horjeesadeen maadaama uusan weli qorshihiisa u fuleen isla mar ahaanta Sadaad waxa uu wacday shiishyahankiisa khaaska si marka dhakhtarada loo dhammaystiro dhakhtarada hoteelka keligeed iska joogta duruufa ayaa u yimid waxayna bilaabeen inay saxiixdo in dawooyinka uu ninkaas uu keenay ay yihiin kuwa sharci daro ah nasiib wanaagsi qof kale ayaa albaabka soo garaacay kaasoo feel wada askarigii duruufa ugu dhow ayaa sujuuda laga toogtay askarigaas ayaa bilaabay in sidoo kale duruufa uu meesha ku dilo dhakhtarada ayuuna sidoo kale halkaas ku dhammaystiray daaqad ayuu istaagay oo uu sheegay inuu qorshaha dhammaystiray isla markii isagiina sujuuda ayaa laga toogtay
hadda mishinkaasi waa lagu guulaystay qorshihii dawooyinka ee dalkana waxaa saxiixay Drufa. isbitaalka ayaa la keenay isagii arrinkaasi ayuuna aad uga murugooday. Ashiika oo weli jecel ayaana sidoo kale dibadda ku sugaysa. saddexdii burcad ee hore loo soo xirayna haddeer waa lasoo sii daayay maadaama kiis saxa aan lagu hayn. kadib tuugaasi waxa uu sheegaya waxaa jira askari khatar ah cid kale ma aha waana Drufa. waxauna bilaab inuu gurigiisa tago waxauna ku ogaaday in ninkan uu dabagal xoog leh uu ku hayo. sidoo kale sawir meesha yaala oo ahaa sawirka dhakhtarada ayuuna biinka ka fujiyay. isla mar ahaanta qorshe kale ayuu u diyaar oo uu go'aansaday in sidoo kale ninkaas uu dabagal ku sameeyo. jiibiyar ayuu soo qabsaday meesha ay xabadda uga dhacday ayuuna ka geliyay. markaasi waxa uu awood u yeeshay inuu dhagaysto wax walba amaba qorshe kasta oo ay kooxdani diyaarinayaan. qorshihiisa xigow inuu ku dhaqaaqo waa inuu soo helo cunug yar kaasoo caddayn ka haya Sadaad cunugani waa uu ogaa waayo cunugani waxa uu jecel la ahaa gabar hore uga shaqayn jirtay xaruntiisa. gabadhaas ayaa sirta ogaatay gabadha mimri ayay ka duubtay mimrigana waxay u dhiibtay wiilka ay jecleed. markaa Drufa saaxiibkiisii ugu dhow ayuu u diray si cunugaasi uga soo qaado caddaynta. sidoo kale Sadaad ayaa diray ninkii burcadaasi ninkaas uga soo qaado caddaynta. si xun ayaa wiilkaasi loo dilay. askariga ayaana gudaha yimid. dhig badan ayuu meesha ku arkay oo uu bilaabay inuu la dagaalamo. sidoo kale caddaynta ayuu gacanta ku dhigay. laakiinse inta uusan meesha ka bixin burcadii ayaa cunugii meesha ku qabtay oo ugu hanjabay inuu biraynayo. cunugaas marow inay caddaynta gudubtay isaga ayaa gacantiisa isku dhammaystiray. askarigaas arrinkaas ayuu ka carooday oo uu bilaabay inuu ninkii albaab ku xiro. sidoo kale caddaynta ayuu gacanta ku soo dhigay. balse wadada uu marayaba Sadaad ayaa ka horeeyay oo bilaabay inuu shil baabuur meesha ku geliyo halkiina ku afduubtay. si xun ayuuna bilaabay inuu markaasi isaga u dilo si ugu soo wareejiyo mimriga. isna waxa uu sheegay adiga Drufa haddaa la kulantid weligaagii saf ma noqon doonteed. Drufa ayaana iiga ka afjaraya. ninkii kale burcad ayaa bilaabay inuu daroogo xoogan afka u geliyo. Drufa ayaa sidoo kale meesha loogu yeeray waxauna arkay sida xun ee saaxiibkiisa loola dhaqmayo. laakiinse raggu waa ay tiro badnaayeen mana uusan badbaadin karin. xitaa ninkii shanshuutarka ayaa meesha joogay oo si xun u jiidaya ninkaasi. kadib hayweenka ugu weyn ee Hyderabad ayaa lagu sii daayay isagoo weliba daroogo badan ka dhargeeyay. mid ka mid ah baabuurtii meesha joogay ayaana si xun u dildilay Drufa saaxiibkiisii dadka ugu dhow. markaa niyuuskana waxaa lagu qoray askari daroogo badan isticmaalay ayaa jidka lagu dilay. arrinkaasi fajac ayay kooxdoo dhammi ku noqotay. Drufa ayaana aad u shakiyay. gurigiisii markuu yimaaday waxa uu arkay sawirka dhaktooraysatada oo biin ku dhagaan. marka ayuu bilaab inuu baaris ku sameeyo qofka biinkani meesha ku dhajiyay. si markaasi farahan inuu Sadaad leeyahay lagu ogaado. baakeetkii oo hore u siiyey ayuu soo qabtay. isla markiina baakeetigaasi fariis ayaa ka soo baxay. waxauna hadda garooshay in sidoo kale ninkani dabagal ku hayo. ninkani caddaynta sidoo kale lagu tixraaci karo waa gabadha uu jecel yahay oo markuu guulaysatay qofta ugu qurxoon ee dalka. waa uu shakiyey in dabagal lagu hayo. maalinkii dambe ayuu dictator dalbaday si uu u ogaado in kaamirad iyo sidoo kale wax dhagaysta gurigiisa ugu xiran yihiin. isla markii uu saa u istaaray waxa uu go'aansaday in gurigiisii oo dhammi uu wada red yahay. bahalka ayuu gacanta ku hayay maba uu ogaba inuu bahalka isaga ku dhex jiro. guriga oo dhammi ayuu qof isagoo weliba si xun u carooday. dhiig badan ayaana ka yimid. Ashiika ayaana u timid isagu waa uu murugaysana si xun ayuuna gabadh u canaantay. waa uuna diiday inuu hadda ninkaasi dabagal kale uu ku sameynayo balse Ashiika ayaa dhiirigelisay. meesha ayayna iskaga tagtay 10 saac galabnimana waxay sidoo kale la ballansanaayeen gabadha uu jecel yahay Sadaad ayaa sidoo kale jecelkiisii wacay si 10 galabnimo ee maanta ugu timaado. sidoo kale Drufa ayaa jecelkiisii wacay si uu raali geliyo toota ayuuna u soo gaday. musqusha ayuu galay si fiican ayuuna u fikiray. waxa uu bilaab inuu ka shakin wax loo geliyo isla markaasi qalabka raadraaca ayuu arkay isagoo dansan. markuu u soo dhawaadana bahalkaasi markiiba waa u guduudanay. hadda si wacan ayuu u shakiyay. Ashiika ayaa timid bahalkii ayuu u dhaweeyay isla markiiba bahalkii waa uu aamusay. hadda wax walba waa uu ogaaday si uu gabadhan u badbaadiyo. waxa uu bilaab inuu ku qayliyo sababtaas Sadaad waa uu og yahay in had qof walba uu jecel yahay uu dilayo. waxauna u sheegay inuusan jecleen oo ay meesha ka tagto. laakiinse wax walba qoraal lahaan ayuu ugu muujiyay iyana aad ayay ugu faraxday. sidoo kale waxa uu xasuustay inay maanta la ballansanaayeen Sadaad xaaskiisa. marka waxa uu sheegay inaysan gabadhaasi la soo kulmi doonin oo ay kulankaasi baajiyaan. maalintii xigtayna badhankii yare ee ku jiray ayaa laga soo saaray jirkiisa. qorshe ayay bilaabeen inay degaan isagoo weliba go'aansaday inuu raadraacani iska reebo. waxa uu tagay meeshii lagu dilay
saaxiibkiisa oo bilaab inuu baaris dheer uu sameeyo fariinta meesha ku qoran ee Druufa ayuu arkay waxaana go'aansaday saaxiibkiisa waxa ugu badan oo uu jeclaa inay ahayd saacadda G-Watch saacadii ayuu bilaabay inuu raadiyo ilaa markii dambe uu helay memory-gi ayuuna helay halkaasi gabar ayuu cadeynta ku helay waana gabadhii ka shaqeynaysay dhakhtarka Sadaat gabadhaas ayaa cadeysay wax walba iyo sidoo kale sida lagu dilay kiiskii koowaad hadda gacanta ayay ku dhigeen kiiska labaadna waa ninka aabihi oo wasiirka in gacanta lagu dhigo feel uu tagay ayaa lagu amray gabadha uu jecel yahay inay feel ka kala badasho sida ayayna ku qaabishay sidoo kale ninkii shaashuutarka ayaa la soo qabtay oo gacan lagu dhigay Sadaatna arrinkaas ayuu ogaaday waxauna raadiyay ninkaasi sidaas la mid ah sida uu saaxiibkiisii hore ugu geystay ayaana isna darooga badan laga dharjiyay wasiirka ayaa sidoo kale golaha yimaaday waxauna bilaabay inuu feel ka akhriyo laakiinse mucjiso ayay ku noqotay dhammaan wasiiradii waxauna cadeeyay wax walba iyo in sidoo kale wiilkiisa uu yahay mid tug ah waxauu sidoo kale sheegay dhammaan wasiirada halkani jooga waa kuwa caada qaatayaal ah sidoo kale Sadaat ayaa u yimid ninkii shaashuutarka oo darooga badan laga dharjiyay waxauna ka baqay in la kashifo maadaama ay hadda ku soo dhow yihiin Druufa iyo ciidamadiisa isla markiiba si aan cadeyntiisa loo dabagelin dhafoorka ayuu ka toogtay Druufa ayaa meesha yimid waxauna ogaaday in hadda ninkii laga dilay isagoo arrinkaasi qorshihiisu ay ahayd waayo muuqaal ayaa laga duubay marka uu ninkaasi uu dilayay wasiirka ayaana loo sheegay inuu wadna xanuun ka soo kacay si degdeg ah ayaana loo kaxeeyay kadib Sadaat waxa uu yimid aabihii waxauna u sheegay inuu sameeyay fal aad u foolxun oo uu sheegay inuu ciqaabtiisa marayo Sadaatna waxa uu wacay burcada kuwoodii ugu dhawaa oo uu sheegay inuu aabihii uu dilo si uu lacag badan u siiyo sida ayuuna ninkaasi aabihiisii ku dilay maalintii xigtayna waxa uu yimid wasiirka dalka ugu sareeya waxauna ku eeday inuu aabihii uu dilay arrinkaasi wasiirka fajac ayay ku noqotay waana wasiirkii aan arkaynay bilowga sheekada balse waxa uu sheegay inuu isaga aabihiisii uu dilay sidoo kale ninkii maalinkaasi adiga ma aadan dilin isagoo dhaawac ahna aniga ayaa dhammaystiray waxauna marka wasiirka uga cagujuglay sidaan aabahii u dilay ayaan adigana kuu dilaya waa inaad iga hodleexisaa Druufa maalintii xigtay ee maalinka aaska la sameynayay ayuu bilaabay inuu marka hore u hadeeyo markii xigayna GPS-ka ayuu siiyey isla markii wasiirkii ciidamadiisii ayaa waxay bilaabeen in meesha lagu xiro maxkamadda ayaa la keenay muuqaalka gabadha ayaa sidoo kale la soo bandhigay muuqaalkaas oo cadeyn toos u ah sidoo kale toogii uu dilayay ayaa sidoo kale cadeyn ahaan lagu soo bandhigay maxkamadda hadda ma jirto si uu isku difaaco waxaana la go'aansaday in xabsi daa'in ninkani lagu xukumo asxaabtiisa arrinkaasi ma aysan rabin waxay rabeen in ninkani dalka laga qabto oo markaasi baxsad ah loo dilo Druufa ayaa si khaas oo la kulmay waxaana ka dalbaday inuu wax qarsoodiyo u sheego isagoo tusay nacaybka badan oo ay dadka u qabaan haddii uu dibadda u baxaan in naftiisa ay khatar gelayso sidoo kale waxa uu sheegay adiga go'aan khaldan ayaa qaadatay annaguna waxaan badbaadinay adiga aabbaha marka ayuu ogaaday in Druufa uu yahay sidoo kale nin wanaagsan oo aabihiisa u badbaadiyay Druufa go'aankii ugu dambeeyay ayaa ahaa adiga si aan kuu badbaadino waa inaan jaakadani badbaadada aad xirataa waayo bannaanka cadow badan ayaa suran kuwaas oo raba inay adiga ay ku dilaan waxa uu dalbaday in la siiyo 5 daqiiqo oo fikir ah aabihiis ayuu la hadlay oo uu ka dalbaday inuu iska cafiyo markii xigtay ayay labadoodii isa soo raaceen bannaankana dad badan oo cari la gadoodan ayaa joogay inta halkaas marayeen mid raba inuu isku day inuu dilo dhakhtarkani ayuu badbaadiyay taabashada uu taabtay dhakhtarka waxa uu go'aansaday inuusan jaakada uusan qabeen sidoo kale dil toogasho ayuu ka badbaadiyay laakiinse wax badanba ma sii raagi karin gabadhii uu jeclaa uu hore aabeed uga dilay ayaa dishay halkii ayay ku dishay markii dambe u yimaadayna waxa uu sheegay maxaa jaakada u soo xiran weyday waxa uu ku yiri qof adiga oo kale ayuu dalka u baahan yahay jaakaduna adiga ayay ku anfacaysaa waxa uu wargeliyay cadeyn kasta oo burcadaas ay lahaayeen aniga jaakada ayaa ku geliyay halkii ayuuna Sadaat ku dhintay isla markiina waxa uu soo helay cadeynta qolyaha burcada ah muuqaalka ayaa ku dhamaanay joornaalka bilowgii ee 1985 ee dilka Sadaat saaxiibayaal ku maasantiin daawashada muuqaalkani insha Allah waa inay muuqaalkan ka sii idinkii